ma jirto wax ka xanuun badan qof aan u furnay qalbigayna kadibna galay laakiin aanan wanaajin qalbigaas ka balan qaaday inuu joogayo laakiin ka faa'iideystay kadibna ka sii baxay qofkaas wuxuu ilooba waxay tahay in qalbigaas uu leeyahay allahaasoo qaboojinayo dejinayo walaalayaal haddaad gelaysaan qalbiga dadka kale ilaaliya sababtoo ah dhaawaca qalbiga iyo dhaawacyada kale isku mid ma ahan adiga idaabanayo qalbigaaga waa waxa ugu qiimo badan aad haysatid hasiinin ilaa qofka mudan maahane waan ogahay jacaylka waa wax qurux badan sax laakiin waxa ka sii qurux badan ma taqaana waa adiga qiimahaaga iyo sharaftaada ayaa ka sii qiimo badan ka sii qurux badan hana iloobin xaq ay kugu leedahay nafsadaada si aadan hadhow u dhihin qalbigaaga ayaa la dhaawacay